kulanti wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiinba meel kastoo aad joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon wiilkii iyo gabadha Soomaaliga ahaa ee ka qayb galayay ciyaaraha Olombikada adduunka ee dhawaan lagu qabtay magaalada London ayaa maanta xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankan Ingiriiska waxa ay ka sheegeen inay la kulmeen hanjabaado kaga yimid gudaha dalka Soomaaliya oo ay sheegeen inaanay dib ugu noqon karin Soomaaliya iyagoo ka codsaday madaxda wadankan inay ku noolaadaan wadankooda ama la geeyo wadan kale oo nabadgelyo si ay hawlahooda isboortiga u sii wataan annaga kaliya meel ammaan ah hadaa helayno meeshana joogayna laakiin se wadankii waana looga hanjabooyaa meel ku noqono ma lahan in walaahi horta nolosha Ilaaha hayo laakiin way adag tahay ku noqoshada magaalada Muqdisho wasiirka Afrika u qaabilsan dawladda wadankan Britain ayaa maanta xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankan waxa uu ku qaabilay wafdi ka socda gudida Olombikada Soomaaliyeed iyo ciyaaryahanadii Soomaalida ee ka qayb galay ciyaaraha Olombikada ee ka soconaya magaalada tan London wiilka iyo gabadha Soomaaliyeed ee iyagu ciyaarahan ka qayb galay kana socday dalka Soomaaliya ayaa ka codsaday dawladda wadankan Britain inay ku noolaadaan dalkeeda ama ay geyso meel nabadgelyo oo aan ahayn Soomaaliya iyagoo sheegay inay hanjabaado kala kulmeen dadaan la garanayn gudaha dalka Soomaaliya isla markaana ay naftooda u baqayaan hadii ay tagaan Soomaaliya in la dilo haddaba wariyahana Cabdi Xafiid ayaa kulankaasi goobjoog ka ahaa ugu horreynna waxa uu inoo turjumayaa oo inoo soo koobaya hadaladii madaxdu ay halkaa isku dhaafsadeen iyo waliba isagoo waraysi kooban la yeeshay wiilka iyo gabadha Soomaaliyeed ee ciyaaryahanada ah oo iyagu ka qayb galay ciyaaraha Olombikada Thank you very much indeed. I'd like to introduce on my left the President of the Somali National Olympics Committee, Duran Farah, and on his immediate left is waxaan idinku soo dhaweynayaa dalka Ingiriiska gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda waxa habeen taariikhi ahaa waxaanu soo maray habeen taariikhi ahaa ee calanka Soomaaliya laga taagay baaga Olympiga uu ka dhacayo dhawaan waxaanu rajaynaynaa madaxweyne cusub baarlamaan cusub iyo dawlad cusub inay idin dhashaan taas oo la shaqayn doono waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay Maxamed iyo Samsam wanaagga ay sameeyeen ayagoo dhibaato fara badan kala kulmay tareerinka xaqiisa xaq nabadgelyada cabsi fara badan ay soo food saartay wadamo lixa ayuu Maxamed ka guuleystay oo ka dambeeyay xilligii asagu ordayay hadii taa uu asagu sameyn karana iyo dadka la midka waxay ku tusisaa dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad isboortiga u jajaban taariikh dheerna ku leh dhinaca kalena Duran ayaa waxa xusay oo asagu ah gudoomiyaha Olympiga Soomaaliyeed inay ahayd habeen taariikhi ah for inviting and welcoming us to such a wonderful surrounding today. Firstly, I would like to congratulate the British. aad iyo aad u qiiro gelisay shacabka Soomaaliyeed cizi iyo sharaf weyn u soo jiiday dalka Soomaaliya ayuu yiri Duran waa mid in badan burbursanaatana waxay dhalisay rajo soo celin aad iyo aad u weyn dadka Ingiriiska ayaa waxay yihiin dad isboortiga aad iyo aad u jecel shacabka Soomaaliyeedna ay la wadaagaan jacaylka isboortiga waxa tusaale loogu filan labada garabkayga fadhido asagoo tilmaamay Maxamed iyo Samsam isla mar ahaantaana soo qaatay Maxamed tusaale soo qaatay Maxamed Farax oo asagoo orday asagoo ordi doona maalinta Sabtida ugu soo food leh baladahabana u rajeeyay We could even look to walk with Mo Farah, who of course was born in Somalia. And it was a very made us all very proud to see him winning the 10,000 meters, and hopefully on Saturday we'll see him in the podium winning the gold medal of 5,000. time, Mohammed Hassan. I think in your heat you beat runners from Ireland, Puerto Rico, Yemen, Guinea, and Niger. So you know, if a young Somali athlete can do that with all the obstacles you faced, how much more will you be able to achieve in the future? aad iyo aad ayaan ugu faraxsan sida naloo soo dhaweeyay ilaa hadda waxaan arkaynaa si fiican in naloo soo dhaweeyay wax maata lama kulmin qof kasta oo aragtay si fiican ku soo dhaweynaya ilaa imaano labarka ka soo dagan ilaa hadda wax dhibaato la kulana ma laha si fiican boqolkiiba boqol si fiican in naloo soo dhaweeyay
waa la mid yani si wanaagsan waan loo soo dhaweeyay wadan wanaagsan waan imaanay khibrada kaliya ay markaa noqono xamar la tagi doono waxay noqonaysaa wadan burbursan iyo wadan dhisan inay isku mid yihiin dadka qaar ayaa waxay suuqa soo geliyeen inaynan rabin inaad noqotaan halkan ay joogtaan arrintaa wax miyaa ka jira والله أرنتس wax kama jiraan aniga inaan noqono waan jeclaan laakiin si wadankii waa ogtahay dhibaatada iyo burburka heesta in 24 saac mataqaana maalin kasta dad lagu dilo hadda dhow waxa lagu dilay jilaagi caanka ahaa marshaal muudey lagu dilay dhibka jira waa ogtahay annagana meeshina looga hanjabayay hadii aan meeshii adiga lagu dilaa lagu dhaho ma aadaysid ina ka istaagtid waa meeshii meel kale nabad ah aasatid annaga kaliya meel amaan ah helayno meeshana joogeena laakiin se wadankii waana looga hanjabooyaa meel ku noqono ma lahan markaad noqotaan ciyaarihiina inaad sii wadanaysaa sheegtay waxaad kaloo sheegtay dhibaato inay ka jirto gabarnimadaada iyo sportska sidee baad doonaysaa inaad u noolaatid markaad dalka dib u noqoto والله horta nolosha ilaaha hayo laakiin way adag tahay ku noqoshada magaalada Muqdisho in hadda oo inta joogno waxa dhacday in magaalada Muqdisho yani barnaamijyad badan laga soo diray xagga Facebook ahaato xagga telefoonadka ahaato qaasatan ani waalidkay waa la wacay in waxa loo sheegay in yani barnaamijkan uu san ahayn mid wanaagsan hadii magaalada aan ku soo noqdana yani wax la iga qaban doono laakiin ma og wax la iga qaban doono ilaaha محمد sidoo kale Facebook waxa lagu soo riday in isagoo madaxiisa balaas la saaray lana dhahayo yani magaalada Muqdisho hadad u soo noqoto madaxaagu waa cancel Cabdi Xafiid Maxamuud TV-ga caalamiga Universal